عليكم ورحمة الله. kusoo dhawaada janaalka. waxaa filaa in muddo waa kala maqnayn, xoogaa mashquul iska jiro. maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo koorso cusub aan rabnaa inaa bishaan oo kale bilaawno. marka koorsadan waxay la xiriirtaa SPSS. hore SPSS waa usoo bixiyey, laakiin wuxuu ahaa SPSS la xiriira xagga researchka. laakiinse maadaama SPSS-ka basiga oo muhiim yahay before aan la gaarin qeybtan researchka, marka cashirkan ama koorsadan waxaa ugu talagalay inaan kaga hadlo SPSS-ka basic ahaan waxyaalaha muhiimka ah, kadib ilaa inaa gaarsiino meeshii isdhihi karno waa macquul. marka kuley hadda maanta videogan kaliya waxaa waa horodhac. waxaa rabnaa aan u sheegno inaan bilaawo doono courses oo SPSS ah, oo aan kasoo bilaawo doono basic ah, oo aan ugu talagalnay dadka hadda ugu horeysa inay isticmaalaan SPSS. waxaana ka bilaaweynaa mataqaanaa stabiska ugu horeeyo qofka hore marka SPSS-ka oo bilaabayo. marka SPSS-kana waxaa waaye kuley waa hadda cusub maaha, waa software aada loo isticmaali jiray waagii hore, inkastoo hadda jiraan application kale oo badan oo iyagana loo isticmaalo xagga researchka iyo xagga statisticada ama econometricka ba ahaado. laakiinse weli waxaa waaye marka loo fiiriyo bulshada Soomaaliyeed waxay aada ugu taxan yihiin ama aada u daneynaya inay bartaan SPSS-ka. marka sidaa daraadeed taasaa xoog saareynaa. marka ilaa basic waxaa isku daynaa inaan gaarsiino mataqaanaa ilaa xad meel ayaa isdhihi karno way ka wadi karaa dadka fahmi karaan. hadda applicationka hadda ujeedaan waa SPSS. aniga versionka waxaa isticmaalaya 29, laakiin different weyn ma jiro, waa isku mid waaye kulligood. waxaa waaye mataqaanaa hal qaab leewaad, marka wax weyn oo farq weyn ma jiro. 25, 24 ilaa 31 qofku waa isticmaali karaa. waxaa waaye farq weyn ah oo versionska kala lexay ma jiro. marka video xaggaas kusoo gabeynaa. marka wixii ka dambeeyo cashiro taxana ah oo mataqaanaa oo isku xiga, oona aan isku daya inaan mataqaanaa aan niga soo daahinin ayaan sameyn doonaa insha Allah. waa mahadsantiin.